waa burbura. Thank you very important. xariir la daawado xalliye inkiro xaskaaga caawiyo xamaali uu ahow jacaylkayga waa burbura. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guud ahaantiin waa idin salaamo dhammaan meel kastoo dunida ku jirtaan waan uga bakayla waxaan rabaa inaad subscribe saarto halkaan rabaa gaarsiiso adigu baa gaarsiin kara walaalkaa baan ahay subscribe saar adiga aad ugu mahadsantahay boqolkiiba boqol. maanta barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay title-ka waan sidaa kasoo aragteen horta dhibaatooyin badan baa jira. dhibaatooyinka jira ilaahay horta intii ay haysato ilaahay ka dulqaado qofkii faraxsanna ilaahay farxadda ha wado. intaa ka dambe macnaha waxaa jirta dabiici waxyaaba dabiici ah oo ilaahay bini'aadanka u dhaliya ayaa jirta. waxaa jirta macnaha waxyaaba ay dumarku ay ku dhib qabaan oo laakiin dabiici ah oo ilaahay dumarka ku abuuro. maraha inaan waay arag waahay oo aan soo arkay oo aan magaranaysaa khibrad hoose oon ku soo dhaqmay oon ku soo camal falay oo waxyaaba magaranaysaa soo jireen aan ku soo ahaan jiray ma aha, balse waa waxyaaba idea oo aan anigu qabo. qofka bini'aadankana waa muhiim inuu fikradiisa soo gudbiyo meesha uu joogo uu kusoo gudbiyo haddii dadka la wadaagi karo iyo haddii meel kusoo gudbin karaba waa muhiim inuu dadka la soo wadaago fikradiisa soo bandhigo waa muhiim. intaa ka dambe waxaa jirta macnaha dumarku waxay jecel yihiin dabiici ahaan ilaahay wuxuu ku abuuray macnaha waxaa jirta dumarku waxay jecel yihiin macnaha ninka inay ka adag yihiin ninka macnaha qabo sawjkooda inay naagtu ka adag tahay oo ay maamusho hadday maal noqoto hadday maskax noqoto adugu waxyaabaha ilaahay asaga uu siiyey hadday maal noqoto iyo hadday maskax noqoto inay ku maamusho ay ku kontaroosho dumarku way jecel yihiin oo wax dabiici ah oo ilaahay u abuuray. raggana waxay jecel yihiin naagtu inayna ka ninka daba hadlaysa ninku inuu qabo ma jecla sababtoo wuxuu rabaa ninku naagta waxa uu dhaho samaysa sida uu dhaho u soco sida uu dhaho u hadal u hadasha ayay raggu jecel yihiin oo wax dabiici ah oo raggana ilaahay u sameeyey. mana aha anigu macnaha inaan kusoo koray oo macnaha inaan anigu way arag u ahay oo macnaha aan soo sameeyey oo kusoo dhaqmay, laakiin waa waxyaaba macnaha idea sida idin soo sheegay. inta ka dambe adduunkan maanta aynu joogno dumarkii waa wada naaris macnaha waa ayagoo dhanba macnaha dumarkii waa wada dhibaato dadkii oo dhan wada dhibaataysan yihiin macnaha dhibaato badan ay jirtaa dhibaato aad u weyn ayaa jirta. dhibaatada aad ka weyn waxay tahay oo aan dumarka ku eedeynayo macnaha aan ulaahay dumarka wada nervous maanta aan sidaa ulaahay wax kale maaha. maanta dad social media gasho gabadhan baa cabanaysa, maanta dad social media gasho gabadhan baa dhibaato sheeganaysa. hees bay isku soo duubayaan oo macnaha ay ka dhigayaan macnaha hub la adeegsado. hadda maanta heesii ayaa waxayba noqdeenba hub la adeegsado. xataa dumarka moogtahay waa isku soo duubaan heesaha ragga iyo kuwa dumarka waa isku duubaan, laakiin ragga iskuma soo duubaan dee heesaha ay naaguhu leeyihiin iskuma soo duubaan. marka dumarka waxa ay ka dhigtaan hub heesta haddii ay nag qaadi haddii ay nin qaadaba meesha ay ku socota ideaheeda bay adeegsanayaan kadibna waxay dareensiinayaan macnaha ideahooda ayay ku muujinayaan. marka waxaad arkaysaa kuwa dhahaya macnaha xuquuqda dumarkaan u doodaynaa oo dhahaya macnaha dumarka dulman ayaan u doodaynaa. dumarka dulmiga horta ilaahay ma jecla qofka bini'aadankaana haddii la dumiyo inaad horta dulmiga aad qofka tagata ama macnaha aad ka soo jeedisto qofka wax dulminaya taa waa sax waa si wanaagsan, laakiin waxaa dhibaato ah inaad macnaha dumarkii oo dhan ay wada dhibaataysan yihiin oo leeyihiin xuquuqda dumarkaan u doodaynaa. raggii baa macnaha yaa macnaha wax dhibaataynayo raggii Soomaaliyeed ayaa dumarkii oo dhan wada dhibaataynaya. horta ragga Soomaaliyeed in horta dhibaato la saara maaha oo ragga Soomaaliyeed waxa ku jira aabbaha ku jira oo walaalka ku jira abtiga ku jira naadarka ku jira waa ragga waa raggii ina dhalay oo rag oo dhan ma saari karna eedda, balse waxaa jira qof walba ilaahay si uu dhaliyaa. rag xun way jiraan, dumar xunna way jiraan. dumarka xun waxaa ka mid ah kuwa intay social media soo fadhiistaan dhahay xuquuqda dumarka ayaan doodaynaa. xuquuqda dumarka ee loo doodaya maxay? xuquuqda dumarka ilaahay uu ka hadla ilaahay sidoo uga hadlay oo uma hadlayaan laakiin si ka duwan ay uga hadlayaan. waxyaabaha maaragtay gaaladu ay ugu doodaan oo xuquuqda dumarka ay leeyihiin
oo dee siyaabo macnaha sidii ilaahay uga hadlay aan ahayn oo macnaha sid ay gaalada uga hadashaan ayay macnaha rabaan inay uga doodaan oo bilmatalan waxaa lagu leeyahay naagtu ninkeeda ma garanaysaa kama amar qaadan kartaa lagu leeyahay oo naagtu ninkeeda haddii ayna ka amar qaadan karin muxuu mas-uul ugu yahay maxaa mas-uul looga dhigay oo qofkii maalinkii ugu horreysay markii la meheerinayay ee mas-uul looga dhigay ayuu ahaa soo ninkeeda ma ahayn ninkeeda ayaa ka mas-uul ah naagta hadhow haddii xumaato imaatana sharciga wuxuu sheegayaa inuu arlada ilaahay waasiciyey oo haddii la isfahmi waayo lagu kala qaadi karo haddii lagu kala qaadana qof walba calafkiisa macnaha uu meesha badan uu ka cuni karo oo qof walba ilaahay wuxuu u qoray ayuu helaya magaranaya waxyaabaha kale ee la yaab kale waxaa ka mid ah gabdhaha maanta siday u badan yihiin waxay kuleeyihin maanaa nin lacag la rabnaa bay kuleeyihin nin lacag la intee la keenaya maanaa nin lacag la xaguu jooga dhalinyarada dhan waad aragtay maanaa meesha la taagay waa maxay malaha waa wada faqiir waxaya dhalinyarada waa boqolkiiba 99 mid baa la haysta inta dadka waa wada faqiir waa wada shaqo la'aan waa bilaa waxbarasho waa bilaa wadan waa bilaa dowlad baa iska wada taagan iska dhacay maalayaan meelaha faashaha ugu abaa la iska wada fadhiyaa fadhi dir baa la wada fadhiyaa iska wada maalayaan waa la haysta okay wiilasha ku soo wiilasha waxay ku leeyihiin maanaha mid waxaan diidayaa maanaha gabadh Maraykanka imaatay gabadh lacag leh qofka gabadh Maraykanka ka imaatay darka maalintaad isguursataan waxaad u malaynaysaa maanaha inaad ka caqli badan jirtid aad lacag ka qaadi kartid kadibna aad ku dhuufinayso laakiin taas hadda ma dhacayso gabdhaha hadda maanta waxay u fikiraan sida raggii oo kale u fikiraan weliba ragga maanta dumarka ayaga ka caqli badan gabdhaha maanta waxay u fikiraan sida 5 nin caqli ku jira ayay maanta u fikiraan sababtoo ah gabadha markay Maraykanka imaanayso Afrika imaanayso ay nin halkan ku guursanayso iyaduba way fakaraysaa waxay u keenaan waxyaabaha jira weliba waxaa laga yaabaa gabadha haddii yar tahay oo gabadh dhalinyaro ay tahay inay ninka halkan Afrika ka guursato waa laga yaabaa inay dhoofiso lacagna siiso macquul laakiin waxaa jira macnaha habro ama haween aan dhahay afartanka iyo dhowrka markii ay ayagoo jira halkan imaanayaan wiil yar baa isku qabanayaan kadibna wiil yar hadaya ay isku qabanaysaa marka halkan wiilka yarka wuxuu moodayaa maanaha horta inuu ka caqli badan karo lacagna uu ka qaadi karo kadibna ay dhoofinayso oo habarta markay dhoofinaysay wadanka meelaha ku geynayso waxay ogaataa habarta iyadoo dad inay la dhulato oo dadka la dhasha Afrika ay buuxaan oo dadkaasna ay rabaan kadibna in la dhoofiyo oo wax dhoofiya ilaa ay leeyihiin marka maadaama ay dadkii halkan joogay faraha badnaa ee dhoofinta u baahnaa ee maanaha meelaha rabi ay dhoofin weeyeen maadiga u shaqo baratay oo ayaa bari ay kala qabtaan oo iyaduba maanaha mustaqbalkeedii waxayba ma iska soo yaryihiin oo iyadoo ay rabtaan oo ayaa bari ay kala qabtaan oo iyaduba maanaha mustaqbalkeedii waxayba ma iska soo yaryihiin oo iyadoo ay rabtaan maanaha jawi degan inay dareentoon Afrika ku dareentay kula qabsatoon miyay adigu ku dhoofinaysaa hadda tu aqal galaysan maaha laakiin dad badan ku dhacday kamana fakaraan dhalinyaro badan ay ku dhacday laakiin taas kama fakaraan oo kamar inta ka badan kusoo dheeraado kan inta kala duwan fiidiyogan fiidiyo lamida waxaan ka qiyaastaa iyo amaana Allah peace and love subscribe na saaro YouTube channel kan para taageero muujiyo taageer isku dayna aad taageerto saanka